الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت qofka ilaahay ma dayacayo camal wanaagsan aad samayso oo intaanu dhan soo samaynaysa ilaahay ma dayacayo rajaynaysa kaama wareejinayo ee waxa la isku haysta hadda waxaa weeyaan bixasbi maa yaraahu nnaas sida dadka arkayaan weeyaan inta misla fahmay qofka camalka soo samaynayo ilaa ay geriisa ka soo dhawaato kitaabkii baa ka hormarayane waa ahlu naarnimada loogu talagalay waayo camal walbo samaysa haddeen horena uga soo hadalnay ilaa dartiisa loo sameynay wax faa'iida u leeyahay xilqooyinka hore uga soo hadalnay run acmaasha waa khawaatimta qofka sekimada u dambeeya bay ku xiran tahay haddii qofkaasi oo xilligaasi ka halaawdo oo qaatimo xumo ku dhinta allah naga badbaadiye oo ahlu naar weeyaan qofkii qaatimo u wanaagsanaatana ahlu janno wey laba nin baa saaxiibo ahayd baa leeyahay laba nin baa saaxiibo ahayd markuu mid rabay baa ninkii kale waxuu damcay inuu tawxiid ku barto war laa ilaaha illa allahu dheh shib war laa ilaaha illa allahu dheh waa aamusan yahay markaasuu warrii maxaa kugu dhacay warrii waxaad hesheeda intaasoo sanana masaajidka kuwada tukan jiray war sootaa quraan isla akhrisan jirnay oo cilmiga isla baran jirnay oo masaajidka aan kuwada tukan jirnay aawo wixii camal wanaagsan siin jirtay waxaas dhammaan muslim walciyaadu billah sidii buuna ku dhintay khaatim maxamed ilaahna iga badbaadiyo marka acmaasha maadaama ay khawaatimta tahay laakiin marnaba ma suurtoobayso qofka idaa saara xabiibu rabbilcaalamiin laa yanqalib caduun lilah qofka xabiibu rabbilcaalamiin marba hadduu noqdo nagradii ilaahay ku dhacdo marnaba inuuba khaatimada ka halaawdo maba suurtoobaba mana dhici karto raxmadda ilaahay qofka mar haddii nagrada ilaahay ku dhacdo naxariista ilaahay taabataa marnaba cadow ilaah isma bedeli karo marka inuu qofka ictiqaado qof wanaagsan oo saalixa oo niyadaada hadday wanaagsan tahay cabsi ah armo ilaahay khaatimada kaa xumeeya ilaa naga badbaadiye wiidaadaysan gelin dadka waxaan ay tilmaamayaan waxa weeye waa dadka marka adduunka joogan camalkan ilaah u qaalisi jirin nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sheekeeyey markaasaa mid saxaabadu ka mid wuxuu yaa rasuul allah maxaaba camal loo qabanaya qofkii markuu dhalo intuusa dhalan ba haddiiba inuu ahlu naar yaha la qoray inuu ahlu janno yahayna la qoray waxa la qabanaa maxay tahay marka nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam icmaluu fa kullu muyasar limaa khuliqa war shaqaysta oo camal wanaagsan la imaada qof walba waxaa loo fududeeyey wixii loo abuuray qof baa waxay u fududay inuu salaad iska tukado qof baa waxay u fududay inuu maanta qur-aanka kitaabka jaamac akhriyo qof baa waxay u fududay inuu cilmiga raacdo qofna maxaa u fudud in maanta musalsal iska daawada maanta oo dhanba dad heesaya iska daawado inuu caawa dhan ku dhafro inuu xafladaha aroosada aado inuu waaga ugu beriyo hadda salaada subax haddii la dhaho jooyinkaa la iska rabo waa u fududaa inuu xilli hore tago laakiin xilligii salaada markii la joogo waa adag tahay soo ma masaajidihii waa iska cidlo guryihii baa la iska jijiifaa waxaasoo dhan la bedelo qof walba waxaa loo fududay wixii loo abuuray qof baa maanta waxay la fududahay suu iska socdo maanta asuu iska tooday balaxooga gabadhan la hada iyo waran walaala isa inta fiican tahay war naga taga leedahay waa ceerinaysaa midna hal kelmado dhow nambar inta uga qaato gurigeeda tegi karaa soo lama kala fududay ninkan ilaahay baa dhoranayo xukmaha lama rabo marka haddoo gaar aslaha lamaba kari karaba si walbo aftaan u yahay nambarkaada keen ma dhihi karo waa ku adkaanaysaa midna asuu gesges u socdo waxa uu ka qaadanaya dabeeta ilaah naga badbaadi qofka marka xabiib rabbilcaalamiin haddoo noqdo caado isku bedelayo ilaahayna waa wanaagsan yahay laa yaqbul ilaa dayiba wax wanaagsan ilaah baa aqbala camalka yarkaa labada ragco sunnada tukanaysa ilaah aqbalaya oo jecel yahay oo khaalisan ilaahi haddaad caawa dhan ku ragca tukanado sheekhan ha ku arka macalinkan ha ku arka isleedahay wax aqbalaya male khaatimaduna allah noo sugiyo adduunkana inta la joogo qofka wixii oo shaqaysto unbuu aakhirna la kulmaya laba nin baa waxaa la yidhi
saaxiibo ahayn walaalo ahaayeen labada nin nin 500 sano nin ilaahay caabudi jiray ka kalena 500 sano ilaahay caasin jiray kor iyo hoos bayna kala joogaan markaasaa shaydaanatu imaado wuxuu yidhi ninkii ilaahay caabudi jiray ee meesha kore joogay buu wuxuu yidhi warheedhe dhimatay walaalkaa muddo maadan arag waa uu iska raaxaysanayaa waa kan meeshan buu iska baashaalayaa intaad inkaara kuu dhacday bal xilligaad toobad keenaysa ma fogay haddaaba iska toobad keena haddaa rabtide bal horta walaalkaa soo arago xoogaa yar la soo baashaal dhinacaada bal baasha kasoo cabarta oo iska soo khamirayso iska soo baashaal dabeetana iska imo iska toobad keen yaa kugu dhegan markaasuu yidhi wallahi waa run ogow horta haddaan walaalkii u taga iska soo baashaalo xoogaa yar bal soo fiiriya xaalkiisa hadhow iska ima iska toobad keeno soo iska caadi ma ah sidii buu kusoo baxay ninkii kalena wuxuu is yidhi warheedha balaayo kugu dhacde intaanoo sanaad ilaahay caasinaysay xumaan mooye hal wanaag ma aadan sameynin sidaanad isku dhaanteed bal walaalkaa u tago inta toobad keenteed ilaahay ku xirnow kanna waa u fuulay kanna u soo degay waddadii ka hormaaday dhulkiiba jaranjaradii baa la duntay meeshiina ku wada dhinteen kii hoose aadoo kheerka doonta muxuu noqday ahlu janna noqday kii wanaagsanaayo markii dambe xumaan doona muxuu noqday ahlu naar yacni saka kii u dambeeyey daqiiqadii u dambeeyey noloshoodii baa saas noqotay marka qof walbana wuxuu ku dhintaa lagu soo saaraa hadda waxaa laga yaabaa inay toobadna la fogaato berri baa toobad keenaya saa dambaa la toobad keenaya waxaasoo dhanna waa laga roonyaa qofka markaas inuu qofka toobad keena habboon maxaa yeele ninkan intaasoo sano camal sameynayay maanta hal mar uu soo degay xumaan buu damcay bartii ku dhintay ilaa jish waa qoran tahay ninkanna wanaag toobadkeen buu islahay niyadii baa ilaa u qabtay waxaasoo dhanna waxay ku xiran tahay waxyaabaha khaatimada wanaajiyo ka mid tahay salaada inuu qofka tukado inuu waaridkiisa baari u noqdo waxaasoo dhan markuu kusoo dadaalo intaa dambe ilaah u fududeynayo